wararka ka imaanaya degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in ciidamada Al-Shabaab iyo kuwa Amisom gaar ahaan Itoobiya ay ku dagaalameen magaaladaasi. Dagaalka oo muddo socday ayaa ciidamada Al-Shabaab la xaqiijiyay in weerarka ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Itoobiya ee degmadaasi Baardheere. Saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda ee ku sugan gobolka Gedo ayaa sheegay in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay dagaalka ka dhacay Baardheere. wax ka badan saacad ayuu dagaalkaasi qaatay waxaana ciidamada Al-Shabaab ay damacsanaayeen inay la wareegaan saldhigga ciidamada Itoobiya ee Baardheere ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha ciidamada Soomaaliya. ilaa hadda si rasmi ah uma kala cadda khasaaraha nafeed ee kala gaaray dhinacyada ku dagaalamay Baardheere. 22 July sanadii 2015 ayay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya Al-Shabaab kala wareegeen ama ka saareen Baardheere iyaga oo xilligaasi xukumayay ku dhawaad 8 sano.